حد أدينا أصلاً daacad marka ahaw oo mar walba ka run sheegaysa waxa ninkeeda ay u sameynayso sidoo kale ninkaaga marka isku dhacdaan oo mugdi uu idin dhex yimaado intaad ordilad oo la tashaneed walaasha waa mid dadku ugu dhow sama saaxiibta hooyada hala tashanin asaga isa soo hor fariista xitaa haduu taagan yahay xaaladda sariirta xitaa haduu joogo la hadal waxaad raada khaladkaasan ka tirsanaya aniga خلتك سكاتر سنة ما حاجة قبل كرتان ما حق إنه حل ما أنا معناه إنها هذه خلت بنكاتر سنة أنا يدون وحويان فريتان وحان أهل أو إمارة يا مره الله سبحانه وتعالى محيري أكتد وحلو وجعل كبديه هو إسلام مركل الصبح وحلو ونعد كبديه هاي روا مركل ودمايو قري دم دينيا مركل كسوة تكتب يوفى إذا ولا يوا حماتها كان الأوضة قري دم هو أباك لا تجين maxaa dambeey hooyo walba shan cunugii la iyo 7 cunug waxay haysatay inay la soo cararto banaanka wax ugu gado Soomaa guriga macid uu rooyay malahan ilaasho gurigaaga mar walba gabaray oo ku taxadar gacanta midig inaad ku qabsatid gacanta bidixna noloshaada kala ku qabso ninkaaga khalad markuu ka galo inta ku degdeg leeyahay walaasha ama saaxiibta walaasha waxa laga yaabaa inaysan ogeyn wanaaga ninkaaga uu ku hayo walaasha waxa jirta waxyaabo badan ay og tahay iyo waxyaabo badan ay soo ogeyn adiga kaliya baa og waxa ninka ay adiga idinka dhaxeeyo oo wanaag ah walaasha waa qof kula dhalatay xumaana kula marabto iyo dhib markay aragto ninkaaga oo yaani hadallada isbedel kula imaanaya maxay kugula talinaysaa naaw basaasu keena muxuu ku maleeyay inaad tahay waxa ku ma malayn ayada wax ka dhigtay walaasha laakiin waxa ku ma malayn qof caadi khalad uu galaa الله سبحانه وتعالى من حليه الضمادة يدوح أرجع على قفك أنتو دنبالة كصلاة الدنبية صمة خلد هو قلا أديك وخلد مكرتا أسقنا وخلد مكرا هذا النقطة اللي بقف أمر والبخلات كإسك جلم إسلا شهر جريء أمر والبقى محد هلا يسي محد يجوا ناجسة رمانتي نورش نقول وك جارسة لكن هذه مرة والبنورش إن أنت أسكت عدم قفص لحد ودين أحيي ماذا never you will never get a solution ولا حل هذا وقدام بين guriga wuxuu noqonayaa guri furinkiisa laga tashaday waayo xumaantiisa wanaagiisa waa laga tashaday sidoo kale waxa jirta waxa aan dhahno waa ku eeganaa ragga Soomaaliyeed caafimaad ahaana waan idinla wadaagay insha Allah waxaan dhahnaa ragga Soomaaliyeed garasho ma laha laakiin maxay leeyihiin garaasho yani ninka Soomaaliyeed waxyaabo badan kuma garanayo ilaa aad weydiisatid asagii Soomaa waxaan dhahnaa muxuu u garan waayay sabab xulka u garan waayay mar walba ma wuxuu iga sugaayay in aniga wax weydiiyo ma wuxuu iga sugaayay in aan waxaas u baahanahay muxuu ii fahmi waayay waxa aan rabo Soomaa laga yaabaa gabar la qabaa tahay gurigaaga joogtaa arrin baa kugu soo korortay arrinta kugu soo korortay ninkaaga koow hadaad u sheegno aad arrintaas aad timid horta miyuu ogaan karaa waa maya second hadaa u sheegtid xataa waxa laga yaabaa inuusan ujeedo badan ka yeelan oo arrinta marka u bandhigto atraadi niyo saasa jirta yani caawitaan baa ka rabtay laakiin indirect wax u sheegtay ma uu ku fahmin wuxuu ku malaya un problemka inaad yani la timid un aad u sheegaysid kaliya barku kaaga si dhaqaaqay arrintaas ma dhacdaha wallahi I'm sorry أنا مركو حرادين إنه نينك دبكنا لا فهمه فلازم فاميل كيقعد دبكو دعاء نينك يقول حن لا هي وإنه راكني وعاء وإنه داسي وحجران وإنه أنا بحوان يعصق وجونا وإن يعني رجع بدن كود جرشدي وكوير mental أهانا مركو لو في شو رجع وحاكو بدن جراي ما تجا عاد وهو بدن رجع أنا جرا وحنا وهو بدن وايت ما توحل له مسكح دينا رجع وحي مرور بفوكس جرايان هالشيء ما فوكس جرايان لا شيء لكن دمرك إلهي هوي ugu talagalay training ba ilaahay ba marka hore ku soo train garay guriga joogta hooyo lagu talagalay caruurta baad ilaalinaysaa iskuulka u diraysaa asagii baa ka fikiraysaa naftaada baa ka fikiraysaa gurigiina waa problem ka yimid waa xalinaysaa you see meeqa point aan isku haynaa ilaahay maskaxdeena marka hore laaj buu ka dhiga wuxuu ugu baday wax dhow white matterki ayagii waxay leeyahay hal focus wax labaad kuma dari karaan focuskiisu waa inuu xafiiska tago يكسوعة أو كلها أيه قولي ما أنت محاكا ديمان أترى واحد سو كديمان داريزي he can't focus many things ديمان واحد بدل ما فocus كران كران سو مركا وشيك وتلمان ما أنا weakness إليهن وسايكولوجيكالي إلها بكو أبورة هدوني كا واحد بدل كران واي وشيك حسوسي
قال وحس بقرن ويسيده وش صح يا مركز هذو نين يعني سحن هدويه سيدو كلا نينكaaga u duceey mar walba asagana ha ku duceeyo isu duceeyo mar walba marka la isu duceynayo ma ahan markay balaayo timaado in la isu duceeyo markii biilku yaraado oo balaayo dhacdo balaayo gabadha ilaahu risaha qadar rabbiyo adaa baxsha soma laakiin waxa la idinka rabaa seeninkaga yani power see ku yeelanaya awood see ku yeelanaya haddaad u duceyn mar kasta maqashii markuu baxay adoo shaatiga u xiraya shaatiyaasha ma xirnaa horta adoo shaatiga u xiraya adoo shaatiga u xiraya maqashii ninkaaga maxaa ku dhahaysaa ilaahay ka soo nabad celiyo ilaahay waxaan talaabo kasta aad qaadaysid ilaahay ka dhiga talaabo khayr badan soo noqo adoo nabada you see shaqada Allah ku fududeeyo waa runteed waa u duceysa shaqada Allah ku fududeeyo you see because of waa maqashinaysa xaalada waliba asaga waa maqashinaysa waxa leedahay ilaahu ninkayga ii xifdi rabbi raxmaan waa ogtaasa u jeclahay kama maarmeen oo waa runteed miyaa ka maarantaa hadduu inta kaa tago kuu soo laaban waayo maxaa samaynaysaa soo ma wareeraysid waa oynaysaa soo maaha u sheeg ninkaaga yani tus waxaa tustaa inaad sugaysid inuu yimaado asoo nabad qaba waxaa tustaa inaad ku faraxsan tahay imaanshihiisa labaad uu soo laabto maqashii dhagtiisa markay maqashiiso uu bannaanka usii baxay wax kasta hadday ku dhacay wuxuu isleeyahay xaaskaagaa kuu soo duceysa waxba kuguma dhacayaan حتى مالك شقدك دعاء كهلماتد وكسو حسوسين دونا هذا قبلها حاسس كلا تجابيه مالك يعني مره walba hada u duceysaninka asoo ku maqlaaya shaqada asoo ku jira markay wax si ka noqdaan oo guriga wuxuu leeyahay wallahi maanta saay walaal xasuus waxa tara oo sorry maanta ducadii aan ka hilmaama waxa kugu dhacay ducadii aan ka hilmaama asaga markaas haduu nin wax garad leeyahay una garanaya ragga Soomaaliyeed wax way gartaan alxamdulillah muxuu ku leeyahay sidoo kale qaal aniga intaan soo laabanayo ilaahay ay ka amaansado already waxa ku kala tagteen laba qof oo isku qalbi foow isuna duceeyay ducadiina marka laba qof oo isqabto kasta marka isu duceeyaan waxay ziyaadaysaa jacaylkii maxabada ka dhaxaysa ee hoos uma dhigto ducada mar walba waa powerful waxbay ziyaadaysaa waxba ma naaqiso Allah subhanahu wa ta'ala xadiis wuxuu ku leeyahay xadiisul qudsi ah wuxuu ku leeyahay inna rabbakum tabarakallahu wa ta'ala yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yuraddahu ma safran Allah subhanahu wa ta'ala wuu xishooda markuu adoonkiisa gacmaha kor u taago oo wax ka bariyo wuxuu ilaahay ku xishoodaa in adoonkiisa soo gacmo maran u soo laabto that means ducada ninkaaga u duceysay waa duco maqbuul ah oo laga aqbalayo u ducey kaliya markaa salaada markaa tukato u ducey asoonku ogeyn u ducey waxaad arkaysaa gurigaaga oo barakoobay mana taqaan suu ku barakoobay wuxuu ku barakoobay ducada ninkaaga mar walba la garab taaganta ku tababar asaga in la isu duceeyo salaad kasta markuu ka baxo oo jamaacada ku tukado waxaad noqonaysaa markaa faamil bulaalay laakiin hadaan bal is xasuusanba oo waxaan kabta ordaysa iyo karinta ordaysa la soo horimaado that is not the life secondly mid kale aan la wadaagay waxay tahay naftaada taas nimanka u sameynaysa Soomaa hadaba naftaada adiga maxaa u sameeysan ma isu qurxisan ninkaaga sida uu jecel yahay ma isu qurxisan waliba daa Soomaaliyeed alxamdulillah maanta waxaan kulligan af Soomaaliya fahmayna waxay darnaa lahayd yani dadka ajnabi inta ugu jiraan inaan luqad international dadka dhan wadaagay inaan idin kula gudbinaa way waxa la ogaan lahaa daciifkana yarka baa la ogaan lahaa laakiin hadda isku sir qarsanayna Soomaalideena baan nahay gabadha Soomaaliyeed waxaan ku xunnahay oo mar walba ragga Soomaaliyeed ay nooga soo cabtaan oo mar walba ninka niyadiisa sii jeedisa maxaa kamid ah nadaafadii gabar kasta markay banaanka taagan tahay oo aan la qabin oo gabar ay tahay oo calaf doon ay tahay gabar ka qurux badan ma leh حتى مالك أي يعني بحيث ميل آديس وصوت بالعارس تحول هاي بريمة لا أصح كار رئيسي because she wanted to become beautiful إنها قروح بدنا تعرفها لكن مركل الجورسدو هل ده مالك هذا شو ورنا شباب كتب مالك كو لو أور بالله ده ما ولع الصاقله that is the end of the life كمان الصوماليات إن استرترتو نينك المرة بأي سعيدك تعرسها هذا يكوه وأسكت ماتا هذين كل عروسة أوجودهم بس تضبط أي كبحر حال إذا كربا مركا waxyaabaha dadka qalbigooda soo jiita indhaha dadka maxaa soo jiita quruxda ninkaaga hada u hadiyaysid quruxdaada uma leen ma inuu meel kale ka fiirinayo
سقر حنين كاغا نظافة واقعد كم إذا نلش النظافة نصف الإيمان نظافة محي كم تهاي إيمان كبركي سالو ده فيري نظافة مرك إيمان كبركي سكم النقطة جور كاجي وحو كامل دين تادي maxaa u guursatay marka hadaad isku qurxineen asaga waxa isku qurxinaa oo kaliya maalmihi xaflada ay jiraan aroos baa jira asalkaas fadhiya inta la soo martay baala barab qaas wuxuu ku leeyahay xaga way barteen nimanka Soomaaliyeed maalinku ku arkado qurux badan wuxuu ku leeyahay maanta maxaa jira ma martaqaad baa jira soma wallahi alcadiim way ku weydiinayaan maanta maxaa jira ku leeyahay ma dad baa noo soo socda that means asaga priority ma siinba isku ma qurxin priority waxa siisay ummadii kala banaanka hadaba yaa way qofka alla noo shahay adiga ma se ogtahay inay jiraan gabdho badan ama dumar badan oo jaanis u waayay inay guursadaan ama ilaahay baan ugu talagelin ama shaqo iyo waqti bay kulmisay waqtigeedii ama wax family problem baa jirta ma guursan karto ama way xanuunsan tahay ma ilaahay ba u qadarin adiga markuu ilaahay gift ku siiyay inaad guursatid oo ilaahay ku qoray inaad guursatid oo calafkaagi uu ku imaaday maxaa ku diiday calafkaaga qalbigiisa inaad degtid oo soo jiidatid maxaa isla mid dhigaysaa yani qof aan waxba haysan ninkaaga mar walba isku qurxi ninka markuu yimaado maxaa sameeynaa for example dhaqamada Soomaalida waxa kamid ah dad baa ku iimaanaya mar walba qolka ninkaaga ha ka duwanaado qolalka kale billahi alaykum see uga duwanaanaya anaga waxa sameeynaa family oo kale waa weyn Soomaa war xataa joodar yar meel haduu ka leeyahay oo aan la seexan karin yani nolosh moogta waxa laga bilaabo mar walba meesha u hooseysa ha ka bilaabin dabaqyo hadaan deganahay meesha u hooseysa hadii yani gurigaas dad isgeey aysan joogin oo meel la kala seexdo la waayo oo asagii adiga halka joodar idin yaala joodarigiisas iyo go'iisas iyo barkintiisas ha ka duwanaado joodariga dad kale isticmaalaan qolkiisa markaad priority ninkaaga siisid gogoshiisa markaad siisid priority muhiimadda markaa gogoshiisa aad taagtid ninkaaga meel uu ku nasto hadhow markuu yimaado qalbigiisa dhan waa degaya daalka iyo dhibka uu soo marayna uu hilmaamaya laakiin markuu noo yimaado sariirti oo gabar ka soo asxaabtayda markay itaan ama reerkayga gabdhihii ila joogay maanta dhan ku kor fadhiyeen oo anigu aan maanta dhan marna geeska uga baxay oo cunugi maanta dhan halka ka orday oo basaasada caana xagga geeska ay ka taala sariirta what kind of life is that nolosha ninkaaga uu yani markay helaya maxay tahay ma hilmaamaya daalka iyo dhibka uu soo maray ma hilmaamayo meesha intay uga laba ziyaado wuxuu leeyahay wallahi meesha nolol ima taalo una iska tagay laakiin maxaa laga rabaa inaad priority siisid muhiimadda nadaafada gurigaaga adigi gogoshiisi awlaadi waa in guriga markuu ninka soo galo ku farxaa nolosha aad ku sugantihiin ma ahan inuu ka xanaaqo ama uu ka naxo markaas ninka uu soo xiisayaa guriga imaashihiisa tan labaad aan sameeyno waxay tahay waxaan sameeynaa mostly gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeedba dabeecadaha kale aan leenahay waxay tahay waan idin sheegay waxa isku guursanaa baan idin dhahay inaa awlaad kaliya iska helno laakiin iskuma guursano nolol inaa asasiino Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu idin leeyahay quraankiisa وإذا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله فصاله 30 شهر الله سبحانه وتعالى wuxuu labadaas sano xawleyn kaamileyn noo yiri waxay danta ugu jirtaa baan familka oo dhan ee ma aan in cunuga kaliya danta ugu jirto familka ninka sabeedan ugu jirta adiga sabeedan ugu jirta cunuga waaba garanna naas waa wax weyn ilaahay baa ugu tala galayba adiga waxay danku ugu jirtaa inaa nasatid markuu ilaahay laba sano ku yiri kala weynaysi awlaadaada laba sano ma aan sanad kasta inaad dhashid waayo hadaa sanad kasta dhashid waxa dhamaanaya muuqaalkaaga waxa dhamaanaya jirkaaga waxa dhamaanaya maskaxdaada caafimaadkaaga kulli waa soo gabagaboobaysaa waxaad isticmaalaysaa awood uu isan ilaahay kuugu talagalay inaad degdeg u isticmaashid dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin haduu ilaahay awlaadana siiyo maxay uga hadlaysaa awlaadda ilaahay waa baxsha alxamdulillah intuu siiya Allah u barakeeyo laakiin maxaa meesha taala awlaadan sanad kasta aad dhalaysid adiga dan ma ku taha aabadashid maxay sanad kasta hal sano gudahood markaan dhalo hal sano gudahood markaan dhalo I mean 5 sano gudahood markaan dhalo 5 cunug isku xigta oo aan neefsasho lahayn oo sanad kasta ninkaaga goorma time u helaysaa goormuusa time ku helaya ma isweydiiseen sanad uur baa leedahay sanadna walac baa tahay sanadna umul baa tahay dhowrka bilood u dhaxaysana period baa habeen kasta kugu dhaca Soma marka dadka goormay nolol qaybsanayaan horta goormay isfahmayaan goorma nolosha romantic ah ninka karti goorma ka helaysaa time ba hadaadan siinba ragga qaar baa waxay jecel yihiin sanad kasta inay dhasho intuu ka fakarayo inuu reer badiyo oo uu ka fakarayo inuu biri magac yeesho la dhaho wiilkii reer hebel ah in hebel wuxuu dhalay 20 wiil
waxaa kaaga fiican hadduu ilaahay ku siiyo shantaasoo si fiican inta u korsatid mooraal fiican aad ku soo saartid birina mustaqbalkooda